يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أما بعد، ولا الليال waxaynu ilaahay baryaynaa inuu inaga aqbalo bishii ramadaan iyo ciidii iyo camaladii wanaagsanaa aynu soo gudanay. waxaanaynu ilaahay baryaynaa inuu inagu sugo wadada khayr kale ee aynu soo marnay. waxa markaa khudbadeennani ay ku saabsan tahay camalka wanaagsan ee cisiga iyo sharafka lahaa sidaynu joogtayn lahayn. ugu horeynba diinteena islaamku waxay aad u dhiiraysay qofkii wixii camalaha uu qabtay inuu joogteeyo. axabu alcamali ila allahi adwamuhu wa inqal. nabiyullaahi maxamed wuxuu leeyay sala allahu calayhi wasalam, camalka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay kuu qofku joogteeyo. camalka diinta iska daayo camalkan adduunyada waxaa lagu xisaabtamaa qofka shaqadiisu joogtada tahay ee aan googoynin, ee shaqada jarjarin. wuxuu caadaysan jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam si uu ummadda u tarbiyeeyo, inuu asxaabtiisa ku dhiirigeliyo, ku tartansiiyo siday u joogtayn lahaayeen camalka oo aanay uga caajisi lahayn. maalin maalmaha ka midoo iyagoo asxaabtu la fadhiya nebiga 4 su-aalood buu weydiiyey. waa dhiirigelin limudaawamati alcamal, camalka siday u joogtayn lahaayeen. afartiiba abubakar ayaa ka jawaabo ku guulaystay oo fadligaa ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala. qofkeebaa qof muslim oo dhintay jinaasadiisa raacay isagoo sooman waagu u bariyey? qof miskiina wax siiyey, qof buu ka soo booqday. intiiba waa xidhiidhkii ilaahay oo la hagaajinayay, xidhiidhkii ummadda muslimiinta ee walaalaha ah. intiiba abubakar baa yidhi aniga. intaasi qofkay ku kulmaa waa ahlujanna buu nebigu uhi sala allahu calayhi wasalam. mar kale wuxuu la hadlay asxaabigii xokayntiisa ahaa mu-aadinkiisii bilaalo. wuxuu ihi bilaalow, xalayte waxaan maqlayay maraan jannada galay sanqadhaada ayaan ka maqlayay hortayda. muxuu yahay camalka aad ku gashay halkaaseed nebi maxamed kaga horraysay jannada dhexdeeda? wax kale garan maaye, mar kasta oo aan weysaysto 2 ragcadood baan tukadaa buuli, oo dahaarada iyo salaada ayaan israaciyaa wakhti aan faradkiiba weli la gaadhin. 2 ragcadood loo yaqaano rakcatayilwuduu markuu qofku weysaysto uu tukanayo. mar kale wuxuu la hadlay cabdilaahi ibnu cumar isagoo mudaawamatlcamal, camalka joogtayntiisa ku dhiirigelinaya. wuxuu ihi nicma rajulu cabdullaahi, ninkaa cabdilaahi la idhaahda ina cumar waa nin aada u wanaagsan. hadduu habeenkii cibaadadaa salaatuleylka gudan lahaa ama joogtayn lahaa. inankiisu wuxuu leeyahay aabbahay intii hadalkaa uu nebiga ka maqlay kadib salaada habeenkii maba goyninba ama ma dayninba, ama inta badan cibaada u taagnaanayo. mar afraad nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu la hadlay asxaabigii isagana da-da yaraa cabdillaahi ibnu camr bn caas. waxau laa takun midla fulaan kaana yaquumu leyla fataraka, calaa macna alxadiid. cabdillaahi ow sida hebel oo kale ha la mid noqon ninka hebel la yidhaahdo habeenkiibuu tukan jiruu iska daayay. waa hadal innaga inagu socda. ha noqon ninkii taraawiixda iyo tahajudka ramadaan un tukan lahaa, inta ka dambaysana iska dayn lahaa. ilaahaynu ramadaan caabudayna, waa bilaha kalena rabbigaynu caabudayno. 4taa tusaale ama namuudaj waxay u taagan yihiin siduu nebigu ugu tartansiinaya asxaabtiisa iyo ummadda islaamkaba camalka ilaahay ku caabudayaan inaanu xilli ku koobnaanin, maadaama ilaahay uhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin. ilaahay caabud ilaa ay yaqiintu ku imanayso geerida ah. limudaawamati alcamali aathaar, inaynu camalka joogtayno raad
iyo faa'iidooyin iyo midho aynu ka goosanaynaa jira waxaa ka mid a kuwan soo socda itisaalu lqalbi bikhaaliqi qalbigeenna yare miskiinka ahi waxa ilaahay ku xidhaya waa camalka ah camalku qiimaha uu leeyahay haddii camalku ilaahay uu kugu xidhayo oo aada iska dayso dee adduunyadaad ku xidhmaysa ibliis baad ku xidhmi kartaa markaa wixii ilaahay kugu xidhayaa wax weyn weyn ilaahay iyo innaga camalkaa isku keen xidha wa sababun limaxabati illaahi tacaala ilaahay baa inagu jeclaanaya waxayna aada u baadi doonaynaa inuu ilaahayna jeclaado subxaanahu wa tacaala ina allaha yuxibu altawaabiina wa yuxibu almutatahiriin camalkan aynu joogtaynaynaa waa sababu najaah nabadgelyaynu doonaynaa inaynu cudur ka nabadgalno cabsi ka nabadgalno cidhiidhi ka nabadgalno cadaabka aakhirana ka nabadgalno ixfad illaaha yaxfadk fallaahu khayrun xaafidan wahuwa arxamu araaximiin nebi maxamed wuxuu leeyay sala allahu calayhi wasalam dad yow ilaahay baa idin ilaalinaya camalkiisa ilaaliya waa sababun lilbucdi can alfawaaxish gobonnimo darrada iyo gunnimada macaasidu ay leedahay cibaadadaasuu ilaahay kaaga fogeynaya ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar salaada foolxumada iyo dembigay dadka ka durkisaa buu ilahay markaystay salaad la aqbalay waa sabab lixusni alkhaatima khaatimadu inay ku wanaagsanaato oo adduunka shaabad fiican lagugu dhufto markaad ka tegayso camalkood joogtaysa ayaa sabab u ah yuthabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli thaabiti fi lxayaati dunya wa fi laakhira camalka wanaagsan qofka joogtaynaya oo qofka iimaanka iyo camalka saalixaa kulmiyey adduun iyo aakhiraba ilaahay baa xaqa ku sugaya ayaa ilaahay uu ku caddeeyey qur-aanka subxaanahu wa tacaala waladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha la maca almuxsiniin nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam qofka markuu ilaahay khayr la doono istacmalahu camal ayuunbuu waafajiyaa camalkaas siduu u wadaa unbuu geeridu ku timaadaa kaasaa ilaahay khaatimo wanaagsan uu la doonay buu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam si aynu camalka u joogtayn karno hunaaka wasaa'il muciina cala almudaawama arrimaa jira inaga caawin kara inaynu hawsheennan qiimaha badan aynu ilaahay ku raaligelinayno aynu u abuurannahay aynu sii wadno arrimaha waxaa ka mid a shayga loo yaqaano alcasiimatu asaadiqa go-aan dhab ah qofka bani aadamkii go-aanka kama soo hadho haddaad dadka tidhaahda ila taliya oonad go-aan lahayn oo aad dadka ag joogto oo aanad go-aan lahayn oo aad tidhaahda ii duceeya waan idinku dayanaya oo aanad go-aan lahayn waxaaga waxba kama jiraan idan markaa go-aankaa dadka kala saara go-aankuna go-aan wanaagsan inuu noqdo waa waafajin ilaahay nabigaa baryayay sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiix muslim ku sugnaa allahuma innii as'aluka athabaata fi lamri waalcaziimata cala arushd ilaaha waxaan ku weydiistay inaan islaamka ku sugmo iyo inaan go-aansado hanuun iyo wanaag waxyaabaha inaga caawin kara waxaa ka mid a aliqtisaadu fi lcibaada cibaadada inaynu dhexdhexaysanno oo inta aynu qaban karayno aynu qorshayno oo cibaadooyinka sunnaha ah ee aynu la imanayno faralku ila halkiisii buu yaallaaye nebigu wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii bukhaari ku sugnaa iklifuu min alcamali maa tudiiquun camalka qaata inta aad kari karaysaa intaa isa saara waxaanad kari karaynin haddaad isa saarto waxaa dhici doonta maraad la kici weydo ina addiina yusrun walan yushaadda addiina axadun ilaa galabah diintu way fududahay buu rasuulku yihi qofka isku adkeeyana way ku cuslaataa qiraa'atu lqur'aan qur-aankood akhrido inkastaba waa inaad inkastood ka taqaanaba ku celceli baro oo sii kororhso waxyaabaha had iyo jeer kugu xidhaya waa ilaahay intaad kitaabka hayso camalka wanaagsan ka tegi maysa waxaa ka mid a alikhaaru min tadakuri lmowt inaad aakhiro xusuusan tahay aakhiroo la ilaawaa waxay leedahay inaad camalkii ka tagto laakiin waxaad isweydiinaysaa camalkan maxaad u samaynaysaa dee meelaad ku socotaa buu sahayka u noqonayaa wax kaaga taraya markaa xusuusta aakhiro wax badan bay kuu sahashaa inaad camalka ka caajisi weydo وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وحصوص قرآنكم إن حصوصنا أيوه إنه كيريدا كهر كفى إذا يسنع عمل كينا وحكم إذا صحبة الأخيار الذين
tudakkiruka ru'yatuhum billaahi tacaala dadka wanaagsan inaad ka ag dhowaato iyaga markaad aragto aad ilaahay xusuusanayso eed aakhiro xusuusanayso naftu waa iska daciifa qofka bani aadamku waa iska daciif uu tabar daran yahay marka hadduu gaadhigiisa ku xidhiidhiyo cid wanaagsan oo jiidaysa wuu ku dayan karaa wuu la tartami karaa marka dad wanaagsan inaad ka ag dhowdahay oo wanaagga iyo khayrka iyo camalkii wada waxay kaa caawinaysaa inaad joogtayso waxaa ka mid ah tacarufu calaa siyari saxaabati ridwaanullaahi calayh inaad akhrido asxaabtii nebi maxamed gacantiisa uu ku tarbiyeeyey kusoo rabeeyey iyo dhaqankoodii wanaagsanaa iyo cibaadadoodii waxaa ka mid a adducaa inaad ilaahay barido rabbanaa laa tusi quluubanaa bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxmatan innaka anta alwahaab qur-aankii baa wuxuu ina baraya inaynu ilaahay barino ilaahu qalbigeyga ha leexin intaa tubta toosan ku hagaajisa ilaahu yaanaan ka baydhina ilaahu nagu hay waxaa ka mid ah almuxaafadatu cala nawaafil sunnayaasha in la ilaaliyo waxaa ka mid ah alikhaaru min dikri illaahi tacaala wardiga inaad badiso xuska alleh markaad ilaahay xusayso qalbigaagu rabbi ku weyn markaad ilaahay ilowdana ma xusaysa waxaa ka mid ah albucdu cani ilmacaasi dembiga inaanad yaraysanin oo aanaad iska samaynin dunuubta aad u arkaysa inay yarta way biiraysaa qalbigay ku madoobeynaysaa cibaadadan kuu dhandhamayna waad ka carari arrimahaasi waxay kaa caawin karaan tobaneeyadaah inaynu cibaadadii joogtayno oo aynaan daynin oo goobii khayrka lahaa aynu camirno inahaa sidaa markaa taladuna ay noqonaysaa sidaynu u wadno camalkan markaa waxay ahayd un ramadaan waa shidaal aynu ku shubanaynay sanadka inta hadhay si aynu u dhaqaajin karno aynu u socon karno si taayirkeennu u wareegi karo sanada inta bilaha soo socda oo dhan ayaynu sahay qaadanay shidaal xagga ruuxda ah oo la doonaya inaynu ku tabarayno aynu ku shaqayno waxaanaad xusuusanaysaa bishu siday u koobnayd wakhtigaynu soonnay shalay bay soo gashay maantana way baxday waxaad xusuusanaysaa dadkii inala soomay ee hebel lahaa ee heblaaye lahaa oo hadda inaga hooseeya oon dib kuula hadlaynin iyo inay suuragal tahay adiga laftigaaguba inaanad gaadhin ramadaanta dambe wax kale ma hadhin ilaa inaynu iska diyaargarowno mooyaane allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaatila baatilan warsuqna ijtinaaba اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد